السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharkeennii maanta waynu kaga hadli doono waxyaalo aad iyo aad u muhiim ah oo luqadda kaa caawin doona. Haddaba casharkeena maanta daawasho wacan oo wanaagsan. Casharkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa comparación des adjectives oo ah adjective-ka iyo isbarbardhigga qaabka la isku barbardhigayo adjective-ka. Had iyo jeer markaynu ka hadlayno adjective-ka isbarbardhiggiisa waxa aynu ka hadli doonaa positive oo ah adjective-ka caadiga ah iyo comparative oo ah marka kii hore la barbardhigo mid kasii tayo badan oo kasii wanaagsan amaba kasii weyn. Haddii la leeyahay bilig uu noqon doono comparative-ku biliga mid kasii jaban. iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa superlative oo isaguna noqon doona unbiligistin oo ah ka ugu jaban. Marka had iyo jeer positive markuu adjective yahay, comparative waxa uu noqonayaa mid kii hore kasii tayo badan marka la barbar dhigo kii hore amaba ka wanaagsan marka la barbar dhigo kii hore. Superlative-kuna waxa uu noqonayaa mid kasii ugu wanaagsan marka la barbar dhigo labadii hore. oo matalan bilig hadduu shaygu yahay biliga oo ah comparative-ka waxa uu noqonayaa mid kasii jaban. Unbiligistin wuxuu noqonayaa ka ugu jaban. Marka had iyo jeer marka la leeyahay superlative haddii qofku ku qeexo superlative shayga waa shayga markaasi ugu tayada badan ugu wanaagsan marka la barbar dhigo dhammaan kuwa kale. Marka macna ahaan sidaas ayay noqonayaan. Haddaba haddii aan soo qaato kelmadda ugu horeysa oo ah bilig, waxaa kale oo aad oran kartaa bilish. Marka labadaba waa isku mid. Bilig waxay noqonaysaa comparative-keedu waxa uu noqonayaa biliga oo waxay noqonaysaa mid kasii jaban. Markuu qiimuhu raqiis yahay bilig waxay noqonaysaa waa raqiis ama ugu jaban. biligana waxay noqonaysaa mid ka raqiisan. Unbiligistin-na waxay noqonaysaa ugu raqiisan ama ugu jaban. waxaad kaloo oran kartaa dayabiligiste oo ah ka ugu jaban. labadaba waa sax weeyi. dayabiligiste waxaad u isticmaali doontaa marka ashyaad iyo intaan leedahay taas dayabiligiste kaas waxa weeye ka ugu jaban. Okay, vam waxa weeye waa diiran. vema waxa weeye ka diiran. Famisten na waxa weeye ugu diiran ama daya famiste. Cult waxa weeye waa qabowga. Kelta waxa weeye ka qabow. Keltistina waxa weeye ugu qabow ama daya keltiste. Gross waxa weeye waa weyn. Grossa waxa weeye ka weyn. Grosstina waxa weeye ugu weyn ama daya groste. Young waxa weeye waa da'yar ama waxa weeye young ingiriisiga waxa loo yaqaano. Younga waxa weeye ka yar. Youngstina waxa weeye ka ugu yar weeye ama daya youngste. Toya waxa weeye waa qaali ama wax lacagtiisu ay badan tahay. Toya haddii aan idhaahno comparative-kuna wuxuu noqonayaa toyga waa ka qaalisan. Toya waa qaali. Toygana waxa weeye ka qaalisan. Toyestina waxa weeye ugu qaalisan. matalan shayga hadduu qaali yahay waa toya. hadduu shay kaloo kasii qaalisan aragtidna waxa weeye toyga. haddii aragtid mid ugu sii qaalisanna waxay noqonaysaa toyestin ama daya toyeste. Dunkel waxa weeye waa madow. dunkelana waxa weeye ka madow. Dunkelstin waxa weeye ugu madow. Dunkelstin waxa weeye ugu madow ama daya dunkelste oo ah ka ugu madow. Frish waxa weeye waa daray ama waa fresh. Frishana waxa weeye kasii daraysan. Freshistin waxa weeye ka ugu daraysan markaasi ugu freshsan weeye. Intelligent waxa weeye wax garad ah oo caqli badan. Intelligenta waxa weeye kasii caqli badan. Intelligentesten waxa weeye ugu markaasi caqli badan. Intelligentesten waxa weeye ugu caqli badan. Good waxay noqonaysaa waa wanaagsan.
besserna waxay noqonaysaa ka wanaagsan. Am besten waxay noqonaysaa markaasi ugu wanaagsan ama der beste. Viel waxay noqonaysaa badan. Mehrna waxa weeye ka badan. Am meisten waxay noqonaysaa ugu badan ama der meiste. Gern waxay noqonaysaa waa jacayl bay sheegaysaa markaasi jeclaansho weeye. Liebena waxa weeye ka jeceshahay, waa waxaad marka hore jeceshahay, liebena aad ka jeceshahay weeye. Am liebsten waxay noqonaysaa markaasi wax aad ugu jeceshahay. Haddii lagu yidhaahdo matalan tusaale ahaan oo kale trinken Sie Kaffee oo tidhaahdid lieber Tea, macnaha shaah baan ka jeclaan lahaa weeye lieber. Marka saas ayay noqonaysaa macna ahaan. Kelmadda ku xigta hoch waxa weeye waxay noqonaysaa wax dheer bay noqonaysaa oo dhererkiisu maaragtay uu dheer yahay. Hoherna waxay noqonaysaa wax ka dheer kii hore. Am hochstenna waxay noqonaysaa maxay ka ugu dheer. Nah waxa weeye waa dhow. Nähena waxa weeye ka dhow. Matalan das ist in der Nähe oder hier in der Nähe. meelahan dhadhow ay noqonaysaa here in the Nähe. Am nächsten waxa weeye markaasi ugu dhow bay noqonaysaa. Klug waxay noqonaysaa waa xariif. Klug ama schlau. Klug markaa waxay noqonaysaa xariif. Klugana waxay noqonaysaa ka xariifsan. Am klugsten waxa weeye ugu xariifsan. Dum waxa weeye markaasi waa saaqid. Dumana waxa weeye markaasi ka saaqidsan. Am dummsten waxa weeye markaasi ugu saaqidsan. Marka kelmaddaas waxaa jirta kelmado badan oo u eg oo ay ka mid tahay kelmadda dun oo ah qof maaragtay dhuuban. taasi waxay noqonaysaa way ka duwan tahay qoraalkeedu. Kelmaddan kale lang waxa weeye markaasi dheer. Längana waxa weeye ka dheer. Am längstenna waxa weeye ugu dheer. Starkna waxa weeye xoog leh. Stärkana waxa weeye ka xoog badan. Am stärkstenna waxa weeye markaasi ugu xoog badan. Page-kan waxaynu kaga hadli doonaa bal isbeddelka ku imanaya erayada inagoo eegi doona bal mid walba qaabka uu isku beddelayo. Haddaba haddii ay kelmadda ay ku jirto aada aan labada dhibcood lahayn waxay isku beddelaysaa markaasi umlaut oo kelmadahaas oo dhan waxaa ka mid ah warm iyo lang iyo kalt iyo alt dhammaantood oo kaaga muuqda qaybtan kale oo sida matalan oo kale warm aadi waxay isku beddeshay markaasi umlaut bay isku beddeshay. Sidoo kale kalt aadi waxay isku beddeshay umlaut. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta ooduna waxay isku beddelaysaa markaasi oo umlaut oo waxaa ka mid ah groß oo isku beddeshay oodii ay isku beddeshay markaasi oo umlaut oo ah ooda ay markaasi ay laba dhibcood saaran yihiin. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan uudu waxay isku beddeli doontaa waxa loo yaqaano ama umlaut sida waxaa ka mid ah jung iyo kurs iyo kelmado kale iyo weero kale oo maaragtay iyaguna intaa kasii badan ayaa ka mid ah. Marka qofku waa inuu ogaado haddiiba ay kelmadda marka hore ay ku jirtay inay noqon doonto umlaut, haddii ay oo ku jirtayna ay noqon doonto oo umlaut, haddii ay ku jirtayna ay noqon doonto umlaut. Marka saddexdaasi waxay noqonayaan waa muhiim. Markaan ka hadlayno qaybta superlative-ka sida warm iyo lang iyo kalt superlative-ka waxa uu qaadan doonaa waxa weeye sten oo matalan ambiligistan sida qalinka casi uu ku muujinayo xagga dambe waxaa ka raacaya sten oo ay noqonayso ambiligistan ama amfemstan oo sten baa raacaysa. Haddaba haddii ay weerdu ay ku dhammaato lixda xaraf mid ka mid ah oo stu ay ka mid tahay iyo shafas s iyo z iyo ay ka mid yihiin dhammaan lixda xaraf haddii ay kelmaddu ku dhammaato superlative-kooda waxaa raaci doona esten oo ay ka mid tahay intelligent oo dhammaadka waxaa taala esten.
marka qofku maskaxda waa inuu ku hayo intaa isagoo intaa yaqaana haddii uu kelmad ay kasoo horbaxdo isagoo intaasi xasuusan waxa uu si fudud ku bedeli karaa kelmad kasta isagoo ka dhigaya markaasi superlative iyo isagoo markaasi ka dhigaya comparative. marka way fududaanaysaa inuu qofku fahmo haddii uu intaasi maskaxda ku qabto kelmad walbana waxa uu ka dhigi karaa comparative iyo superlative labadaba. marka taasina waxa weeye waa muhiim inuu qofku marka hore uu ogyahay. casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. intaynu iskugu iman doono casharkan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo saxibtida sms ah oo idin leh dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dhammaanba asxaabta tv-ga Somali German Connection oo idin leh intaynu iskugu iman doono casharkan oo kale ah dhammaantayo waxaan idin leenahay sidaas iyo amaanaha.